ciidamada uu doonayo uu leeyahay Puntland baan ka qorayaa federaal weeye muxuu Jowhar iyo Xamar oo 60 kiiloomitir isu jirta isugu furi waayay muxuu aadan yabaal ugu tagi waayay masjid biyo guduud muxuu ugu tagi waayay aadan yabaal muxuu ugu tagi waayay afgooyo 30 kiiloomitir u jirta muxuu ugu tagi waayay ciidankaas muxuu geyn waayay waxa kamid ah wuxuu yiri Xamse wuxuu yiri aniga dadka reer Puntland metela 4 sano oo uu ra'iisul wasaare ahaa horta Puntland maalina ma imanin waxa soo haray dhalinyarada Puntland ee u baaqaya uu leeyahay direyskay qaadanayaan ciidanka xoogga dalkay galayaan horta calmiskaad 7000 oo fiid jooga badda buuraha ka koreeya oo helicopter iyo nin soconaya mooyaan wax aan cid kale gali karin dhaawacooda buurta dusheeda markay kula dagaalamayeen argixisada xasan sheekh wuxuu u diiday diyaaradihii soo qaadi lahaa dhaawacooda ruqsadii ay dalka ku soo gali lahaayeen wuxuu diiday dawladihii hubka siin lahaa oo caawin lahaa hubkoodii buu diiday wuxuu diiday baasaboorradii kuwa la soo badbaadiyay dhaawacooda dibadda loogu qaadi lahaa buu diiday xuquuqdee markaa uu ku metelaa muxuu ku metelaa xasan sheekh wuxuu diiday doorashadii Puntland ee qof iyo cod ee golaha deegaanka buu diiday dhalinyarada reer Puntland wuxuu ugu baaqayaa wuxuu leeyahay maartay dawladnimo ugu baaqayaa wuxuu diiday deeqii waxbarashadii u diiday shaqooyinkii buu diiday mashaariicdii buu diiday xasan sheekh 2022 bishii August 25keedii Puntland buu yimid 7 maalmood buu joogay kelmad ka soo baxday oo dadka reer Puntland u sheegay oo dawladnimo ah ma jiro waayo waxa uu yiri 4 sano aan joogay annaga iyo Puntland wax xiriir ma lahayn xiriirka isaga hogaankii dalka ah isaga laga rabay oo mas'uuliyadu saaray inuu waajibka dhinaciisa saaran ka soo baxo kelmadii isaga oo ka soo bixin buu dhoofay 7 maalmood intuu Puntland u hooyanay gudaheeda maalintaasi waa duuban tahay BBC-dana waad ka helaysaan radio dalshina waad ka helaysaan waxaan idhi xasan dastuurkana ma ogola federaalkana ma ogola deeqaha waxbarashada Puntland ma ogola mashaariicdana ma ogola dawladnimo loo dhan yahay Soomaaliyeedna ma ogola dastuurka in wada jir loo dhameystirana ma ogola intii buu ku sifoobay horta dastuurkii waa tuuray meeshuu ka saaray wixii dalka Soomaaliya isu hayay intaasay ahayd meeshuu ka saaray xuquuqda markaa uu hayay oo uu siin lahaa maanta kuwa uu shalay dhaawacooda diiday in la daaweeyo kuwa uu diiday in la gargaaro kuwii uu yiri maartay fiiqi uu yiri xayeysiis baa loo samaynayaa dagaalka Daacish xayeysiis ciidani loo samaynayo weeye doorashada 26 ee dagaal meesha kama jiro fiiq baa hore looga hayaa maantana waxa la wuxuu yiri soo ceeleer jooga dalka laba xisbi baa ka jiro xisbiga JSB iyo xisbiga Al-Shabaab baa dalka ka jira maantana hadalkaas Al-Shabaab waxa laga hayaa ninka loo jeedo fiiq waa runtiisoo dee shiiqi wuxuu ka mid yahay xisbiga Al-Shabaab buu ka mid yahay waxa yihiinba mabaadiida xasan intaas ku soo dhamaatay waxa la isku hayaa horta waxa la isku hayaa muxuu yahay dawladnimada Soomaaliyeed sida uu ekaanaysa la isku hayaa Puntland maxay rabtaa dawladnimo federaal oo dadka Soomaaliyeed u siman yihiin bay rabtaa waxay rabtaa inanka dhalinyarada iyo gabadha dhalinyarada ee iskuulka Garowe iyo Xaafuun iyo kaga baxday meesha la yiraahdo Garaacad inay shahaadada gurigooda ku helaan bay rabaa ay ugu timaado imtixaanka shahaadigu inuu gurigooda ugu yimaado ay rabaa xasanna wuxuu rabaa imtixaanka lagu kala iibsado habeenkii Cabdilshideeye habeenkii lagu kala iibsado aroortii gabadhii iyo wiilkii Garaacad imtixaanka ku gali lahaa ama Xaafuun ku gali lahaa ama ku gali lahaa muxuu ahaayay Baargaal wuxuu rabaa inay imtixaanka u sinaadaan hadda xalay baa la kala iibsado waxa lagu kala iibsado Cabdilshideeye wuxuu rabaa shahaadadii gabadha Baargaal kaga baxday iskuul inay xamar u doonato gaari u raacdo ciidamada uu doonayo uu leeyahay Puntland baan ka qorayaa federaal weeye muxuu Jowhar iyo Xamar oo 60 kiiloomitir isu jirta isugu furi waayay muxuu aadan yabaal ugu tagi waayay masjid biyo guduud muxuu ugu tagi waayay aadan yabaal muxuu ugu tagi waayay afgooyo 30 kiiloomitir u jirta muxuu ugu tagi waayay ciidankaas muxuu geyn waayay bari muxuu u geyn waayo meeshii ciidanka dawladda hubka lagaga furtay hubka lagaga dhigay muxuu ugu tagi waayay koonfur galbeed siday u dhan tahay magaalo u talawdaa ma jirto 7 sano 8 sanadood maxaa halka ugu ciidanka halkaas looga baahan yahay ciidanka uu sheegaya waxa uu noqday iyo mabaadiida iyo dawladnimada uu doonaya in la yiraahdo maartay in la yiri madaxweynaha Jubbaland maxkamadda gobolka Banaadir oo aan jurisdiction ba u lahayn waarana looga jiro hal soo qabto hal dilo Jubbaland hal lagu dilo
saraakiisha laaluusha loo soo diro hal yiraahdo dawladdiina ha ka amar qaadanina dalku hadumo haddii al-shabaab ay iska hortaagan yihiin dhufayska xabadooda way isu muuqataa hal kala daaday si al-shabaab u qabsado Puntland 700 kilomitir 750 kilomitir 1600 oo badda ah saa doonta aad u socon kartana wuxuu yiri dawladnimo kama jirto bal hadda isbarbar dhiga idinku inta isbarbar dhigtaan Soomaaliyeey bal ka jawaaba su'aal kale aan idin xusuusinaya xasan wuxuu yiri Puntland annaga u tagaynaa haday wada hadal rabaan inaad xusuustaan mooyaane markii la qabanayay shirkii nabadda iyo media oo BDRC lagu qabtay waara ay nagala soo qayb galay Professor Baadiyo baa nagala soo qayb galay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni habeenka wuxuu yiri meel fagaara Soomaaliya wadna maqlaysaan dawladda federaalka wada hadal baan ugu baaqaynaa fagaara aanu ku garnaqsanaynaa qol mugdiya ma rabno haddii aanu gar leenahayna ha naloo garaabo war haddii aanu gar dareenahay Soomaaliya ha nala qabto xasan ergadii waad ogeydeen inuu diiday oo ay media ka sheegay in xasan diiday ergadii inay la hadlaan waad ogeydeen inuu 25 August 2023 inuu yimi oo kelmadi ka soo bixin oo aanu muxuu ahaayay hadal oo iska tagay wada hadalku doonaya xagu ka dhici lahaa wuxuu rabay miyaa shantii afartii maamul goboleed oo isaga u talinayay ee markuu raba ku duulayay ee markuu raba oranayay doorashaha gelin xukunka u kala bedelayay wuxuu rabay inay Puntland 5 ku noqoto doonayay Puntland way diiday inay 5 ku noqoto Puntland waxay rabtaa inay dawladnimo federaal oo ay qayb ka tahay oo sharci lagu kala baxo oo sharci wax lagu wada leeyahay oo maartay system federaalka ah iyo mid state-ka oo wada shaqeynaya inay isku meel ka jiraan oo dastuurkii maartay ku meel gaarka si wada ogola loo dhameystiro afti dadweynana lagu meel mariyo Puntland saasay rabtaa ciidanka xasan sheegay marka laga heshiiyo shuruucda federaalka laga heshiiyo bay xaq u yeelan doontaa dawladda federaalka ee xaq lagu doortaa inay ka hadasho markaas laakiin waxa uu hadda ka hadlaya ciidanku ka hadlaya waa kuwii Jubbaland ku duulay waa kuwii hadda ku duulay koonfur galbeed waa kuwa uu doonayo inay Puntland ku duulaan taas ciidan qaran ma hadde shuftu abaabulaya shuftana reer Puntland yeeli maayaan dhalinyarada reer Puntland ee ciidanka ah ee qabiilnimo intuu telefoon u diro nin siyaasi oo baagamuudo ah oo xil u cadhaysan intuu telefoon u soo diro oo reerkiina abaabul dawladnimo reer laguma abaabulo tashi qaran baa lagu abaabulaa waxaan leenahay xasan mudxeleedkiisu waa u dhamaaday muddo dhaaf 2 bilood buu hadda sii maraya dadka Soomaaliyeed ha baraarugeen muxuu ahaa dadka koonfurta ha baraarugeen oo xasan ha iska qabteen dalka wixii dawladda ka tagtay inna Turki buu ka xaraashay inna isaga xaraashtay airportkii buu Turki ku wareejiyay dekadii buu Turki ku wareejiyay iskuuladii magaalada Muqdisho ku yaalay buu dhamaantood Turki ka gaday carruurta Soomaaliyeed fiil lagaga qaataa hadda badii buu ku wareejiyay oo kalluunka kaligiin baa maartay jilaaban kara shidaalkii buu ku wareejiyay kaligiin baa muxuu shidaal baaran kara wuxuu noqday dukaan Turki leeyahay supermarket Turki leeyahay oo ka macaasho xiriirka Soomaaliya iyo Turki baa ka macaasho Soomaaliya wax dani ugu ma jirto waad maqlayseen hadda waxa dhacayay dhexdhexaadinta hadda uu wadana uu ku meel dheeraysanay xasin haydiinsi u joogo bay uga dan leeyihiin Turki waxba dhexdhexaadin maayo Puntland iyo federaalku isku hayaan dawladis iyo dastuur baa la isku hayay iyo disciplinkaas la isku hayay laakiin wixii dhan tameel la iska dhigay baa waxa kala hadashay doorasho ilaa hadda doorasho kala hadashay badan waa ka xumaayay horto muxuu ahaayay waxa la yiri muxuu ahaayay sidii loo jabaa loo dhutiyaa ma ogtahay waxa la rabaa xasan in la dhaafsiyo inaanu xalaalaysan inuu xukunka sii hayo oo hadduu ogolaado in doorasho maartay xilgaarsiin isagoo sii jooga uu doorasho qabtana waa la hadlayaa doorashada muddadeeda laga hadlayaa hadduu diidana waa laga dhaqaaqaya wax kale oo xasan waayo mandate ma laha heshiis haddii waa la ismaamulaya waan u jeedaa ismaamulayna anagoo ismaamulayna ciddii ismaamuli weydana iyaga u taala ciddii ismaamuli weydana wasiirkii dhalinyarada ciyaaraha